waaya maanta maxaa idin wadaa maanta waxaan idin wadaa qiso aad cajiib u ah. Waxay u dhacaysaa sida tan. Nin ayaa waxaa la yidhi waxa uusan haysanin saddexda dadka ku noolaadaan. Maxay yihiin saddex dad ku noolaadaan? Waa su'aal. Diinna ma lahayn, dadna ma lahayn, deeqna ma lahayn, saddexdaba ma lahayn. Marka nin saaxiibkiisa u tegey wuxuu dhahay inuu ila tali. Nin da'ana waa noqday, dad iyo deeq iyo diin toona ma lihi, maxaan sameeyaa? Wuxuu yidhi nin talo waa tii Ilaahay, laakiin waa ku tilmaama. Hay ii tilmaama buuri. Sheekh la yidhaha sheekh saddex mas'alo oo saddex mas'alo la weydiiyo kaaga jawaabaya ayaa waxaa jooga yidhi baydhabo u tago yidhi sheekha la yidhaha sheekh saddex mas'alo weydii mas'aladaada waa kaaga jawaabaa. Waayo yidhi waa ka tegey, wuxuu aaday baydhabo u aaday magaalada Afgooy uu sii mariyey. Afgooy muu sii mariyey markii Afgooy nin boqor ah ka tali jira. Boqorkii ayuu ku sii hoyday. Boqorkii ayaa weydiiyey wareystay magaalada maadaama ku cusub yahay ninkan. Wuxuu u sheegay inuu u socdo baydhabo sheekhaasna inuu la kulanyo uu rabay. Marka inaan bal wixii allaale wixii tala isii kariyo aan ka doondo. Warniga waa fiicantay anunkana wuxuu yidhi yaa Afgooy dana sanadkii mar ka mid ah ayaa dibgeeska in ka soo kaciyo oo geeska kale magaalada uga baxaya. Hantidii shacabka iyo wixii loo dhan baaba ay naqanayaan. Warniga dhibaatadan haysatee sheekha noo soo weydiiyey bal dhibaatadaas uga bixi lahayn. Wuxuu yidhi saddex mas'alo sheekhu ka jawaabay saddexna anaa watee maxaan sameeyaa? Wuxuu yidhi oday kaliya aad tawri laakiin shacab dhan ayaa hantidiisa baabawaysaa. Kuwaaga mid ka tag midaan noogu dar. Waayo yidhi wuxuu sii mariyey magaalada la yidhaaho Wallaweyn uu sii mariyey. Wallaweyn uu sii maraya wuxuu ugu tegey nin dhulku la go'aayo uu sii mariyey. Waa wareystay wuxuu yidhi haa dhaca warniga dhulkaana ila go'u hay dhibaatana ay haysato yidhi. Dhulkaana mar in la dumaa laga soo baxshaa yidhi. Inta la danjooda marka ila go'a dhibaatana ay haysato yidhi wax soo ma qaane. Wuxuu yidhi neeyahow hadii inta u socotaa baydhabo u socdaa sheekhaasna u socdaa dhibaatadaas ay haysato. Warniga waa fiican tahay ana ii weydiiyey sheekhaas bal dhulkan ila dumay wax xal u ah iyo caqabadan waxa keenay ii weydiiyey yidhi bal. Wuxuu dhahay neeyahow ninka dhulka la go'ay waa ka darin masaladiisa qaad warasan soo celino qaad. Wuxuu sii mariyey meesha la yidhaaho buuraka uu sii mariyey. Buuraka uu sii maray wuxuu u tegey nin oo dhulku ku dhigay dhulka qabsanay. Iyadoo joogo dhulka dhab dhaasa ceshanay. Ninkii u tegey waa sheekaysteen waa wareysteen wuxuu u sheegay inuu baydhabo socdo oo dhibaatooyinkaas ay haystaan. Nin wuxuu yidhi dhibaatadan haysata dhulkaana igu dhigaayo waxaan uga bixi lahay sheekha ii soo weydiiyey. Roona rabbi uu waa qaatay idan masaladii. Meeqa masalo wata marka saddexdiisii iyo saddex kale oo Afgooy Wallaweyn iyo looga soo dhiibay meesha loo yaqaan buuraka wata. Baydhabo tegey sheekha u tegey mag la martay qaaday oo la soo dhaweeyay oo habeenkii u hiiday subaxii sheekhu wareystay oo bal soo dhaweeyay waa ii socotee horka keen. Wuxuu yidhi sheekhow saddex masalan wata saddexna waa lay soo dhiibay waxaan rabaa inaad iga jawaabtid. Wuxuu yidhi ma saddexda lagu soo dhiibay ma saddexda aad wadatid mid ka tag. Saddexda lagu soo dhiibay ama saddexda aad wadatid mid ka tag. Hal midaan kaaga jawaabaa. Saddex su'aalood bis aan kaaga jawaabo amba taa wadatid ha noqdaan amba tii lagu soo dhiibay ka dhig. Wuxuu dhahay wadada mas'uuliyadda soo qaadee adiga taada iska dhig meel ta lagu soo dhiibay weydii. Wuxuu dhahay tayda meel iska dhigaa ta lagu soo dhiibay ka jawaab. Haye xiinu Afgooy waxaa jooga nin boqor ah magaalada Afgooy dibaa ka kaca geeska ilaa geeska kale dibkaas gaaraya sanad kastaba maray gubataa. Dibkaas waxaa sababay si loo bixi lahay waa la rabaa. Wallaweyn waxaan ku soo maroon nin dhulku la dumaayo ee dhulka laga soo bixinayo. Ninkaas uga bixi lahay dhibaatada haysatana waa laga rabaa. Buurakaba waxaan ku soo maroon nin oo dhulku ku dhigayo. Idan waa laga rabaa dibkaas wixii keenay iyo wixii looga bixi lahay. Waa igu soo dhow. Buurakaba ugu soo kaysan ka bilaabayna.
buurka waa ninka dhulka ku dhagaayo wuxuu yiri deegaanka uu joogo keligiisa quraanka yaqaanaa dadka hareerihiisa quraanka ha baryo waxa ku dhagaayo waa quraanka dadka ha baryo keligiisa quraanka yaqaanaa dowladda biri deegaanka diinka dhamaadka guuraha marka quraanka ha reebiyo ha baryo haye wala weynaga jooga wuxuu yiri dhulku waxa uu la dumaayo hanti ilaahay uu talagalay ku jirtay iyo ka cabsanay xaqoto kala soo baxay haye afgooy ninka jooga wuxuu yiri dibka waxa sababa boqorka afgooy wuxuu yiri gabar aad u qurux badan oo joogto waa laga soo doontaa oo u diidaa ishaas bini'aadamkiisa ah hayse gabadha hadii laga soo doonto qofka diinkiisa uu ka raali noqdo ha siiyo hayo waa soo baxay wuxuu soo maray buurka marka rimo xalan ku haayo haye quraanka ma taqaanido haa waxa ku haysto waa quraanka dadka baro saas miyaha adiga ma ku baraho ibar bas loo hawo soo qaata qarraf alif amal baa sale oo akhri alif u dhameeyay higaadigu bari oo akhriska iyo kiciska u bariyay wuxuu soo siiyay kitaab oo farguri la dhigi jiro xilliga hore haysa jiray wuxuu yiri kiciska waa taqaanaa akhriska waa taqaanaa kitaabka qaado quraanka si dhameysata kadiga akasoo tagay wuxuu soo mariyay kii oo dhulka la dumay wuxuu xalan uu soo helo meesha ku dumaysa hanti ilaahay kugu talagalay ku jirtay qod kala soo baxo hantida ka cabsanin waayo uu meesha la dumayso qodiyay wuxuu ugu tagay dahab aad u fara badan ugu tagay oo laba jawaano dahab ah ka badana markaas wuxuu uriniyo dahabkan laba noogu dhigo aniga dhigan qaadaha maadaama adiga masalada iga keenta shiiqa dhigaga kala qaado saas miya aha sihe oo soo qaata wuxuu u yimiday afgooy u yimiday boqorkii wuxuu u yimiday oo afgooy ka talinay xurniyo mushkilada xalal soo helo hay gabar ma ku joogtaa ha ma laga soo doontaa ha gabadhaas laga soo doontay cidii ka soo doonata si ha u diidine dadka gabadha u diiday ishoor le wax magaalada hayso ishoodi waa wax magaalada hayso saas miya ha adiga hadda ku seenay gabadhii gabadhu ku mikri bas ninkii magaalada muqdisho wuxuu soo guuriyay asagoo diinkiina la soo baray deeqna wata dadna ku soo siyaado xasiyesh ya waa saddexdii mas'alo oo markii hore u safariya laakiin sheekhu uu ma soo jawaabinay si dadban ilaahay uu fududeeyay marka meeshaas maxaa laga qaadanayaa meeshaas waxaa laga qaadanaya dhahan dadka xigmadda u saaxiibka danta caamka haddii aad ka shaqaysid dantaada way soo baxaysaa mar walba dantaadu waxay ku hoos jirtaa danta caamka ay ku hoos jirtaa laakiin danta caamka haddaa iska indhatirtid ee adiga bis dantaada ka shaqaysid dantaada ma fulayso sababtoo tii caamka hadaa qariban iidaa ku celinayso marka meesha waxaa laga faa'iidayaa danta caamka ka shaqay danta shakhsigaana way soo baxaysaa sharafka karaama aad u mahadsantiin hadda halkan naga soo gaarteen waxaan ka codsanaynaa janalkeena subscribe noo dhahdiin aad u mahadsantiin